dhaawacyo ku jira cusbitaalka guud ee magaalada Laascaanood ayaa la soo gaarsiiyay deeqdani oo timid qurbajoog u dhalatay gobolka oo ku sugan wadanka Yurub. Dadkan dhaawacyadooda ayaa waxay yihiin kuwa culculus iyo kuwa fudfudud, iyagoo dadkan ay isugu jiraan dad yar oo iyagu ka shaqaysan jiray gudaha magaalada Laascaanood oo xoogsata ah. Deeqdan ayaa waxay tahay deeqo isdaba joog ay soo gaarsiinayeen dadka qurbajoogta ah ee u dhalatay, waxayna ka codsadeen shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed in la soo caawiyo qaarkood oo ay dhaqaatiirtu sheegeen in aan waxba lagaga qaban karin dalka gudihiisa ayna u baahan yihiin dhakhtar dibadeed. Dhaqaatiirta gacanta ku haysa ayaa waxay ka warbixiyeen xaaladda bukaanadani, waxayna sheegeen in ay aad u ladan yihiin inkastoo ay jiraan qaar ay rasaasi ku jirto loona baahan yahay in wax lagaga qabto meelo fogfog. Sidoo kale iyadana waxaa halka ka hadlay Shaqlan Diiriye Gool oo ka mid ah qurbajoog u dhalatay deegaamada Sool, oo waxayna ka warantay deeqdan la soo gaarsiiyay. Wiila Cali Duulana oo ahayd gabadhii loo soo wakiishay lacagtan, dhammaantood waxay ku dheeraadeen in la soo caawiyo dadkan dhibaatada lixaad kale dadkii ugu dhaawacmay ku jira caawi laba jeer baa qalin ku dhacay. waad u jeedaan saaka waa fiican yahay alxamdulillaah. ilaahay waan baryaynaa in uu ilaahay u fududeeyo kana kor qaado dhibaatada haysata. waana fiican yahay hadda marka xaaladiisu sida ay ahayd markii hore la eego aad iyo aad baa hadda u fiican yahay alxamdulillaah. waan rajaynaynaa marka waxaan uga mahad celinayaa dadka soo taakuleeyay bukaankan mid hore iyo mid dambe hadeertaba waan u mahad celinayaa runtii. waana wax waajiba oo loo baahan yahay inay u geystaan dadkooda tabaalaysan ee jiifa isbitaalka. marka gabadhan lacagta soo dirtay iyo inta kale Maryam Xasan Diiriye Goolle iyo Rooda Xasan Xaaji Maxamed Xaaji Axmed labadaba runtii waan u mahadnaqaynaa sida dadnimada leh ee dareenka leh ee runtii ay ugu soo dadaaleen bukaankan. waxaan ka codsanaynaa dadka kale ee gobolka u dhashay ee meelaha ay jooga sida gabdhaha mutadawacnimada ay u soo caawiyaan dadkooda isbitaalka jiifa inay u soo caawiyaan. waxaanuna ilaahay ugu rajaynaynaa in dhaqaalaha ay la baxeen mid ka badan ilaahay ugu bedelo meeshii aad baan ugu mahad celinayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. haddaanu nahay howlwadeennada caafimaadka waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqanaa dadka caawiya dadka baahan ee deegaanka u dhashay, isla markaasna ay ugu dambeeyeen labada gabdhood ee la kala yidhaahdo Maryam Xasan Diiriye Goolle iyo Rooda Xasan Xaaji Axmed oo kala jooga Faransiiska iyo Ingiriiska. gabdhahaasi way mahadsan yihiin, waxayna u soo mariyeen taakulada 300 oo ay u soo direen 3 qof oo bukaan jiifa oo cusbitaalka Laascaanood yaala, oo ay u soo mariyeen gabadha la yiraahdo Wiila Cali Duulane. lacagtaasi 3 bukaan ee cusbitaalka jiifa way soo gaadhay. dadkii soo dirayna way ku mahadsan yihiin. kuwa loo soo dirayna ilaahay waxaan ugu rajaynaynaa in ilaahay ku gargaaro oo gargaar uga dhigo insha Allah. ilaahay ilaahay ka dhigo. anigoo Shaqlan Diiriye Goolle waxaan u mahadnaqaynaa labada gabdhood ee gartay ragga dalka ah ee dhaawacay cadowga helay in waxay u soo direen wax ka badan turkooda u soo diray meel walba waa jiraan. caafimaadna in ilaahay siiyo ka dulqaado xabada cadowga. aad baan gabdhaha ugu mahadnaqaynaa. wax ka wanaagsan Allah siiyo hablaha, wax ka wanaagsan Allah siiyo. ilaahay ha u dambi dhaafo ragga yagana Allah noo caafiyo. mid kasta oo sida wax ugu dhacan diyaar baan u nahay dal iyo dibadba. marka soo bixiya lacagtii kan wiilo gabadha lacagta ka qaadayna waa Wiila Cali Duulane kaashe. Ismaaciil wiil ka soo baxay khabar waxaan ka weydiiyay sidoo oo masantahay Wiila Cali Duulane aad baad ugu mahadsantahay. deeqda ku soo gaadhay ee aadna sidii ay u ahayd aad soo gaarsiisay dadkii loogu talagalay. cawil qabsan lacagtan deeqda ودعي وهم هذا عليه ذاتك سوى تاكلي هذا القدر هذا إله خير يقولها إله قبلها العاوية إله خير يحصل على كسيه
bal ka waran adiga sidee wax ku gaadheena gacanta waa iga gaadhay halka keliya waa iga gaadhay ilaahay waxa saada khasiyo luqadii wax soo caawiyay magacaaga adoo ku bilaabaya محمد جابر حنو ما تعلين dadka la soo caawiyo tolkiga sidoo gaareen dadka qaar bisi xusoo gaareen waxaan baa ku dhacay halka inta kaga soo dhacday afka ayaa halka dambe qadaadka ka baxday waa siladay haddii xaaladiisu sidaa u jeedaan Allah u gargaaro Allah caafiyo waan u ducaynaynaa بسم الله الرحمن الرحيم نرتب حان مرك هروب من هالعلنية قبلها العقد نوصل دريس دقة لا هي ماشي خيرها أقول بدل وناق ماشي قصة نوصل بحيان أنا داوعي حتى كوهم علاش لو كثير بالي قلي يدو لو كثير علاش لقى قلي هذا علاشي حبدي دمعة أنا يقول شرطه ولو كان عادي اللي بيسو مرك عاد يرتو الحمد لله رب العالمين أبا نفين marka balka waran hada dhaawac هذا يرتو حاول يقدر أن لقطن أو آدي سعود كي يدبيو oo marka soconaya kale saayso ku bisho nafsi qabsanayso sidiinteedu muruqaha neerfaha aadi karsi la dhinacaas oo dhan hadda caloosh xaq caloosh uu iibsatay laakiin xaq lugta mar hadda yarto aad uga cawarna ninkan dhaawaciisu wuxuu ahaa dhaawac culus sida uu idin sheegay xabadu caloosha kaga dhacday waa la qalay xidmihii iyo dhulkii xabadu googoysay waa laga soo jaray wixii moodaha wixii kale waa la isugu taray uu fiican yahay imika xabadu waa ku jirtaa waxay joogtaa meelaha araxda spinal cord-ka ama xangullada agagaarkeeda joogtaa sidii kale wuu fiican yahay laakiin xabada ku jirta oo xagga neerfayaasha uu dareenkoodii isbedel ka yimi una u baahan yahay in wixii tabarruc u sameynaya ama se wuxuu qabanaya inay ninka gaar u ogaadaan maadaama uu nin dhalinyaro yahay oo soo koraya xabaduna ay meel neerfa saaran tahay oo ay ku jirto sida marka aftar dabadeed in loo qaado oo la taakuleeyo ayuu u baahan yahay marka sida wixii musliina loo socday iska caadi inta isku filan وسيدة السلام عليكم الله يدعم الله يدعم صبرنا الله يسخر صبرنا الله يسخر حبضنا إن شاء الله إلهي نسبتين وإن إلهي نكر قاضو بان إلهي كبرينا إنه حبضنا نكر قاضو نكن يقول راوع عروسنا نفتي سيرها بهاي لكن وأنا قبله شيء لو سود ذلك ومنطقة وحي اللغة وكان كل أديس لقينا حبض انتين ميل كلا جرين لقى بحيو حق وليه هيوانا ننطلع وانا نرميها وحبقى بسكرين لأنهم بينا الدنيا لا حلكيسة هي حبديسة كبحنتيسة كل أديس لقينا أنا أولى على الدلنا waxaan u mahadnaqayaa hablaha deeqda yar isoo wakiishay oo kala ah Maryan Xasan Diiriya Goole iyo Rooda Xasan Xaaji Axmed waan guddoonsiiyay namada ay soo dhiibeen insha Allah khayr yana way mahadsan yihiin mana aha deeqda ugu horeysay oo timaada insha Allah tii u dambeysana ma noqon doonto in badan baa la soo caawiyay laakiin de waxa ku qabta waxa aan waawimo كل الله يدك كده وابلا يا والله يباركيه الله يباركيه والله waxaan filayaa warbixinta ay siiyeen qoladan isbitaalka iyo mataqaana ragii xogogaalka waa sida dhaawac ama idinku iyaga afkooda ku ranteen marka anuna waxaan ahayd ninkaas aabihii dhaawac culus ugu dhaawac cusla caloosha labada jiro operation-ka ka galay xidmihiisii badh la turturay المهم من كان حتى يبدأ يقدرين حتى يمكن حنقول له كذا اللي حاجة علاشي حنقول لها كم بيحب تقولتي مركا وحبها هي كل إن لا قاضوا هالك بريش في سالك ما بقول كلي كرمال تبدأ من مويان المهم يعني عديس يقول إحنا كذا شيء مويان حبك واحد من مويان حنقول لها شيء كنت حبتي مركا يمكن رفع عملية وقال بقول لي حاجة أنا ما أعتبرك يعني هالك حديث كاس اللقطة هي وين لفها علاها لقاه وكعبنا يعني عادي الله يا حبتي بقى تسوي وحبدي عروش كقد على حبدي عروش كقد على بهالك وقلبتي حيد ما شيء كويسي تبدنا هالك شيء قلبتي مركا وحو ريش متدادي وحو كل باهي هي وهالك واحد مدين انقلب الله قري كرا اولين بعد مده يعني كورم isaga يعني dhakhtar kan qalay oo isaga laftigiisu dhakhtar kan qalay waa aad baan ugu mahad celinaa boqolkiiba boqol baan u mahad celinaa waa nin ku wanaagsan xagga qalitaanka
boqolkiina boqol dadaalaya intii isagu joogay halkan anaguna aanu joognaa ku arkaynay marka waxa weeye isagu dee operatiinkii uu samayn karayay uu sameeyay 2 jeer buu caloosha ka qalay oo maaragtay uu ka waayay xabadii meesha waa nin aad iyo aad aan ugu midcelin isagu qalliinkiisa fududna waa nin aad iyo go'ash qaybay cabdikariin nolol S24 TV xarunta gobolka Sool ee magaalada Laascaanood